oo si fiican u taqaanaan Axmed Cali Jaamac Axmed Farax loo yaqaano oo asagu degan magaalada Leicester isla marxaantaana dadka active-ka oo dacwada ku jira labadan sheekh aad baan mar kale ugu mahadcelinaynaa waxayna isku jecelahay insha Allah taala ka munaaqashoodaan waxay diintu ka qabto Sheekh Cusmaan wuxuu aaminsan yahay mawlidku inuusan ahayn mid Ilaahay iyo nabigiisa iyo adilla cad loo hayo diinta ku sugan meesha Sheekh Axmed uu rumaysan yahay mawlidku mid diinta kamid inuu yahay shariicaduna ay dhigayso rabbigay muxuu yiri subhanahu wa ta'ala muxuu sayiri kan mid lagu daydo mudane sallallahu alayhi wasallam ilaahay asagu quraankiisa uu ku yiri laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal aakhir wa dhakara allaha kathira hadaba adiladaas aanu fiirinayna waxaan jecelahay barnaamijkan intuu socdo inaad idinkuna nagala qayb qaadataan una noqdo mid ilaahay aan ugu dhawaano aan dambina naga soo raacinin aflagaadaduna absolutely mamnuuc way and I will not tolerate Sheikh Cusmaan labadiinuba ay Sheikh Axmed ku soo dhawaada Universal TV barakallahu fiik aad bay idinku mahad celinaya safarkiin dheer ku timaadeen idinkoo doonaya ummadana oo faa'iideysan ilaahay inuu dhawaataan labadiinuba jazakumullahu khayr wa ahsanallahu ilaykum Sheikh Cusmaan waxaan rabaa inaan ku siiyo 5 daqiiqo oo marka hore bal ku qeexin mawlidkii meesha salka ku hayo laakiin waxaad igu tiri daqiiqad baan rabaa ummadda aan kula hadlo ka horeysa kelimad dayib aan ilaahdo inta ka hor tafadal barakallahu fiik adiga Cabdulxafiid iyo maamulka Universal waan u mahad celinaynaa maadaama ay barnaamijkan iyo barnaamijyo lamidaba ay ugu tala galeen inay dadka ugu iftiimiyaan diintooda iyo wixii laga yaabo inay ka dahsoomaan intaas kadib waxaan rabaa walaalahana daawanayo inta aysan hawshaanu bilaaban oo aan la guda gelin hawshii aan u nimid mawlidka ma la ogol yahay mise lama ogola in xaflad loo dhigo waxaan rabaa in dhowr arrimood ay fahmaan oo waxa aan sheegayno si ay hadhowbito ugu fahmaan qodobadaas qodobka koowaad wuxuu yahay maadaama anigu aan hadhowbito qeexi doono mawlidka nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi in xaflad loo dhigo oo ixtifaalaadkan iyo dabaaldegan iyo reynreyntan iyo feestooyinka loo dhigayo inaysan sharciga la kulahayn maadaama aan caddaynayo waxaan rabaa in dadku ogaadaan taas macnaheedu maahan dadka mawlidka dhiga inay yihiin dad aan colaad u hayno dad aan iska soo horjeedno dadaan inaan burburino rabno dadaan inaan baabi'ino rabno maahan ujeedadu saas waa dad walaalaheena oo u baahan maadaama aan aaminsannahay arrintaas ay samaynayeen inaysan sax ahayn si wanaagsan oo qurxoon inaan uga dhaadhicino oon ugu sheegno in aysan arrintaasu diin ahaan sax ahayn arrinta labaad waxay tahay fadhigan aan aniga iyo walaalka igala qaybgala aan idiin soo gudbi doono waxa aan hayno macnihiisu maahan in nina ray doono nina laga ray doono ujeedadu waxay tahay waxa ilaahay rabo iyo waxa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi lagu raacayo mujtamacana anfacaya diintooda iyo caqligooda inaan dadka usoo gudbino ayaa muhiima haddii qofkan uu saxda sheego oo ilaahay dadka garansiiyo oo ay sidaas ku qancaan labadeena ninkeena ma rayn ee waxaa raayay xaqii sidii xaq ahayd ayaan gaarnay sidaas awgeed marka saanoo kale la rabo in diin laga hadlo culimmadu waxay dhaxleen oo ay matalaan rasuulkii salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyo ambiyadii ka horreeyay alculamaa warathatu alambiyaa ambiyadana waxaa lagu yiqiin inaysan marnaba xataa hadday dadku iyagu dhibaan oo ay caayaan inay la mid yihiin geedka timirtaah oo kale oo dadku inta dhagax ku tuuraan isagoo timirta usoo rida waxaan ugu dambeyn leeyahay waxaa la raba in mar walba maanka lagu hayo oo maskaxda la geliyaa waxay tahay in inta adduunyada waxaan lacag haynay aan gelino mawlid iyo arrimo kale diin ahaan laga yaabo inaysan sax ahayn si aysan u dhicin inta waqti badan gelino oo dhaqaale gelino oo juhdi badan naga baxo si aysan u dhicin aakhiro marka la tago wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun qofkii markuu aakhiro tago asagoo islahay wax badana kuu jira haddii meeshii markuu u taga la yiraa waxba akoonkaaga kuma jiraan uu muraar dilaaca uuna qaracma marka waxaa fiican hadda intaan fursad haysano waxa aan samaynaynaa inay noqdaan wax aan hubno insha allahu tacaala ama culimmada islaamku ay isla ogol yihiin inay yihiin wax ilaahay loogu dhowaado si aysan aakhiro u dhicin in qofku uu asagoo gacmo maran soo istaago waqti aysan jirin wax kale oo lagu badbaadayo camal fiican maahan intaas haddaan ka baxo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waa nabigeennii waa xabiibkeennii waa rasuulkii aan jeclayn wuxuu mudan yahay qofka muslimka wax kasta oo rasuul ay ummadiisa kula dhaqanto ayuu mudan yahay in lagula dhaqmo
nabiyullaahi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu ahaa qofkii dadkan ka badbaadiyey naartii, jahliga ka badbaadiyey, xumaantii ka badbaadiyey, dilkii iyo qabyaaladii iyo islayntii ka badbaadiyey, mugdigii kasoo bixiyey usoo bixiyey cilmiga. nebi moxamed wuxuu ahaa rasuulkii loo soo diray inuu noqdo intii raacday iyo intaan raacinba, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina maahan. xataa danta uguma jirin muslimiinta keliya ah ee caalamkao dhan ayaa maslaxadda ugu jirtay rasuulka in lasoo diro salawaatu ullahi wasalaamu calayhi. mawlidka la dhigi maayo marka macnaheedu maahan, weligeedna ma dhicin, wax caqliga gelayana maahan qofkii yiraa mawlidka xaflad loo dhigi maayo inuu nebiga uusan jeclayn. nebiga in la jeclaadaahu waa waxyaabaha qofkuwa muslimka uu ku noqdo ayay ka mid tahay. ayadaa darajooyin leh, laakiin darajada ugu hooseyda rasuulka haddaadan jeclayn, rasuulka haddaadan rabin, rasuulku hadduusan kugu weyneyn muslimba mahid. marka yaan laba laysku qaldin. haddaadan mawlid ka dhigin inaad rasuulka nacab tahay, qofkii yiraahu hade waa qof kasta oo wax garanayaahu uu fahmi karo. waxaan ka hadlaynaa waxaana ma yihiin wax rasuulka loo soo dhiibay mase maha. waxaan ku bilaabaa si dadku u fahmaan waxaanu siday isugu xigeen si caqli ah. nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi mawlidka waxaa la dhigaa bisha rabiicu lawal. nabigu goormuu dhashay? horta sanadkuu dhashay si dadku u fahmaan. nabigu goor uu dhashay haba yaraatee cid hubta ma jirto. qof taqaan 100% goortii nabigu dhashay sanadkii ma jirto. laakiin qiyaas iyo culimmadu dadaal la dadaalay ayay siyaabo kala duwan sheegeen. intooda badan waxay yidhaahdeen waxaa la dhalay sanadkii xabashadii nasaarada ahaa, kristanka ahaa, markay kusoo duuleen kacbada oo inay dudumiyaan rabeen. sanadkaas oo ay ka hadlaydo suuraddan suurat ulfiil oo maaragtay ay yimaadeen raggii watay maroodiyaasha. sanadkii dhacdadaasu dhacday wakti kamidahu dhashay ay culimmada intooda badan ay yidhaahdeen. inkastoy jiraan culimo badan oo ayagu yidhaahdeen sidaas maahan, nebiga intaan la dhalin ayay xataa dhacdadaas oo caamul fiilka waktiga loo yaqaan, sanadkii maroodiyaashii duulaanka ahaa ay kacbada kusoo qaadeen, sanadkaas 40 sano ka hor intuusan nebigu dhalan ayay ahayd qaaraaba leh. laakiin intooda badan waxay leeyihiin sanadkaas caamul fiilka la yihaa ayuu nebigu dhashay. sanadkii fahmi bishuu dhashay, bisha uu dhashay sidoo kale ayagana lama yaqaan. laakiin culimada intooda badan waxay yidhaahdeen bisha rabiicu lawal ayuu dhashay. laakiin wax hubaala maahan, sida hadhowta aan dib ka sheegi doono. maalintoo kasii dhashay bishaas sidoo kale broblem badan ayaa ka taagan. horta maalin ahaan taariikhda intii ay ahayd lama yaqaan, laakiin maalin ahaan midday ahayd bisaa la hubaa. nabigu wuxuu dhashay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maalin isniina. taas waa hubaal. xadiid abi qataada cinda muslim wagayrihi ayay ku taala. hadhow bitaan sheegi doonaa xadiidka. nabigaa la weydiiyey sababta uu u soomo maalinta isniinta, markaasuu wuxuu ku jawaabay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dalika yowmun wulidtu fiihi wa unzila calaya fiihi wa bucithtu fiihi. 3 arrimood isku daray. waa maalin aan dhashay, waa maalin diinta nebinimadaba la ii doortay oo aan nebi noqday, waa maalintii koowaad oo qur-aanka laygu soo dejiyey. maalin ahaan marka waa la yaqaan inay isniin tahay, laakiin taariikhdu maalintay ahayd ma 10 ma 5 ma 6. culimmadu qolba meel ayay la aadeen. in badan qeyb badana waxay leeyihiin nabigu wuxuu dhashay 8 maalintii 8aad, qale waxay leeyihiin 10kii, qole waxay leeyihiin 12kii, qolba meel. laakiin sida caankaa oo culimmada intooda badan leeyihiin 12kaasay u badan yihiin. marka haddaan marka raacno culimada meeshay u badan yihiin 12kii bisha rabiicu lawal sanadkii caamul fiil. laakiin hal sanad ah, hal abtiris oo qaabka lagu cadeeyo ah waxaanu goortay dhaceen iyo siday u dhaceen, hal shay oo sugan oo laysku waafaqsan yahay marka cilmiga xadiidka iyo taariikhda la isticmaalo lama hayo. waktigii rasmigaha maalintaas inay 10 ahayd, inay 5 ahayd, sababto waxaadna ku cadaynaya inaan cid hubtaahu jirin. intaas oo qawl, intaas oo hab oo kala duwan ay culimmadu qoloba meel ku dhufatay. ma gelayo culimmadii falaga iyo ragga yaqaan taariikhaha iyo waxaas waktiga ay iyagu sheegeen, laakiin iyagu waxay leeyihiin in badan
571 taariikhda miilaadiga markay ahayd ay meelahaasay ku beegneed ay leeyihiin waktigii maalintii nabigu uu dhashay. ko maxaa keenay marka in la oqon waayo maalintii taariikhdu intay ahayd, bishii ay ahayd, sanadkii ay ahayd? maxaa keenay? waxaa keenay shay qof kasta oo diinta fahamsan iyo taariikhda carabta uu hore ka garan karo. nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay inaa ummatun ummiya, waxaan nahay ummad aan waxna qorin waxna aqrin. saas awgeed carabtu ma aysan oqoon sanad iyo bil iyo waxaas taarikh ma xisaabi jirin. waxaa wax lagu xisaabi jiray sanadkii maroodiga iyo bishii u dhacay dagaalkii gaajada iyo abaartii baastaaley bis saasa u calaamad ahayd, laakiin ma aysan oqoon taariikh qoran oo qofku date of birth uu leeyahay. xukunkiisu marka muxuu yahay? yaasa bilaabay? labadaas bisaan ka jawaaba. waxaan usoo noqdaa xukunka usoo noqon 5 daqiiqo ka dhacday marka usoo noqon xukunka Sheekh Ahmed tafadhal 5 daqiiqo haysta barakallahu fiik. bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi shaykhi shafi'iyyun sama alhamdulillahi alladhi li ash'ariyyun zama alhamdulillahi alladhi li mashayikhun kurama alhamdulillahi thumma alhamdulillah thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا دتك مسلمين ونقدا ونيا أدونك دع الذي ساه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إلهي بأمهد علينا يا. ثانيا ثم تيفيغان عالمي يونيفرسال تيفي وأمهد علينا يشوغان أما برنامج كان قاليقا داديه معنا شخصي داديهنا يا ولال كان عبد حفيظة وعن كان أمهد علينا يا ولال كي مسألة إلى هذا ما شاء الله تعالى شيخ عثمان أسقنا وأمهد علينا يا بارك الله فيكم جميعا. هدان قضب كأن أسو قدبو وقت قال ليسي أنا أدو إلى علينا يا بشا نبيقو رشي صلوات ربي وحن كهذا لنا وموليد وي موليد دتكو إرجع وإسكو خلدانا واحد دهن موليد واحد يا دورته مجران وموليد واي وميم يا واو يا لام يا ديل واي وحنا عدينا يا مكان دلشاء أما دلشادي بو عدينا يا مرك الله في رياسرت وكد اسمايو ومصدر ميمي يا ظرف مكانه ميمي مرك الله في من جانب الصرف أما من جانب لغة العربية مرك النبي جينا صلوات ربي وسلامه عليه بشأ رشي ولا سودوية أو حلقو سودوية حفلذو آدو وناكسن إيا النبي صلى الله عليه وسلم تعديم كيسال لقو سودوية أنا يقول ولالكي ما شاء الله تعالى ما دام يقهري كلام كبوينتس كيسي عربابيا وعلينا هي نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وحود شيء 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله عن الحرم وحماه. نبي وحود شيء bisha markay 12 ahayd bishuna waxay ahayd rabiicul awal maalinkuna wuxuu ahaa yawmul ithnain. mid waaqirayna oo ma diideyno haddaan nahay dadka mawlidka aaminsan macnaha dhigistiisa culimada gobolkood inay isku khilaafeen macnaha dee maalinka waxaan ka ahayn ma diideyno taas waxaa yeelay masalada xaqeeda in la siiyaa la rabaa, laakiin mas'alo walba marka laga hadlayo waxaa la fiiriyaa jumhuurta culimadu meeshay isku raaceen. walaalkayna asagoo laftigiisu si fiican buu maasha allah u qiray khayr allaha siiye oo ah nebigu inuu jumhuurta culimadu inay u bateen nebigu inuu dhashay bishii 12 markay ahayd rabiicul awal sanadkuna macnaha waxaa la oran jiray caamul fiil. maxaa keenay marka sanadka in lagu magacaabo oo lagu sunto caamul fiil? waxay la mid tahay taas soomaalida waad aragteen soomaalideena dhaqan baan leenahay waagii hore qofka taariikh ma la tirsada waxaa laleeyahay deertii heblaaye ahayd buu qofkaasu dhashay baa la leeyahay. macnaha ma jirin hijriye iyo taariikh la xisaabsada ma jirin, sidaasaa lagu magacaabay caamul fiil. waa lagu suntay 50 macnaha beri ka hor 40 beri maahan 50 beri macnaha ka hor buuna nebigu salawaatu rabbi oo kacbada uu soo weeraray maroodigaas buu nebigu dhashay salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh. marka mawliidka saan u qeexayba waxa macnaha laga hadlayo oo laga sheekeynayo waa dhowr shay wey. wixii faahfaahina gadaal baan u geli doonaaye. waa midda koobaad ee siiradii nebiga dadka la baraya oo looga sheekeynaya salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh. waa midda labaade nebi moxamed baa la ammaanayaa sala allahu calayhi wasalam. waa midda saddexaade
haddee macnaha dee ijtimaac iyo kulan khayri ah meeshaa ka dhacaya. waa midda afraad ee sadaqa macnaha la bixinaya. saddexda dhowrkaa shay marka la fiiriyo shay walba haddii adilo looga raadiyo shareecada islaamka mid walba adiladiisu waa waafi oo wax aad u tiro badan oo caawa makaankan aanan kusoo koobi karin waayo. marka waxaan leenahay nebiga waa la yaqaanaa bishuu dhashay, waa la yaqaanaa taariikhdii macnaha uu dhashay 12 bay ahayd, waa la yaqaanaa maalinkuu dhashay waa yowmul ithnain salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. intaba kutubta siyarkay ku qoran tahay. waqtiga macnaha aan haysto ma lagu faahfaahin kara, laakiin dib baan kasii faahfaahin doonaa. intaba kutubta siyarka iyo adilada kusoo aroortay bay intaba ku caddahay. caawa si fiican bay shucuubta soomaaliyeed ay nooga bogan doonaan biidn illahi ilbaari insha allah. midda kale walaalkeen maasha allahu tacaala wuxuu yihi xiwaarku ama dhibeydku inuu noqdaa wanaagsan, usluub wanaagsan. waa sax taas aad baan maasha allahu tacaala u ayiidayaa. shayga in laga dhigo ilaahay dartiisa, marka la wada hadlayana mas'alada xaqeeda la siiyo. walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa. mar walba qofku inuu cadaalada ka shaqeeyaa wanaagsan, shacabkana loo tabiyo wax wanaagsan oo khayra si ay ummaddu u faa'iidaystaan. waxaan rajeynayaa tv-gan iyo daadihiya barnaamijkanba cabdulxafiid inaan maasha allahu tacaala barnaamijyada noocaana ay sii socdaan si shucuubta soomaaliyeed ay uga faa'iidaystaan, anaguna aan uga faa'iidaysano biidn illahi ilbaari insha allahu tacaala. midda oranaysa nebigu sanadkuu dhashay lama yaqaan, bishuu dhashayna lama yaqaan, taas waa arrin anigu aan khilaafsanahay haddaan ahay dadka mawliidka aaminsan in la dhigo. waxaan leenahay nebiga bishuu dhashay waa la yaqaanaa, daydkii iyo taariikhduu dhashayna waa la yaqaanaa, maalinkuu dhashayna waa la yaqaanaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. khilaafa ku jira culimada. waa aragteen masaa-isha islaamka marka laga hadlayo culimadu waa isku khilaafaan, laakiin jumhuur lculamaa waxay isku waafaqsan yihiin culimada madaxyaweyntooda aad caawa arki doontaan nebigu inuu dhashay 12 min shahri rabiici lwal min caami lfiili aladii sadahu allahu can ilxarami waxamaa. nebiga marka xafladda saasaan ugu dhignaa haddaan nahay dadka mawliidka aaminsan. jacaylka nebigaa ummadda lagu beeraa, nebigaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, sadaqaa la bixiyaa, wax walbo wanaagsan baa ummadda maasha allahu tacaala loo sheegaa. waxyaalahaas adiladooda oo cadcadna caawa waad ku bogan doontaan biidn illahi ilbaari insha allahu tacaala. aad baa umahadsantihiin wabilahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. hagaag baarak allahu fiik. labadiinaba waa idin mahad celinayaa sida hufan a u doodeen. waxaan jeclahay markaan sheekh cusmaan aada dib kuugu soo noqdo oo ku siiyo 2 daqiiqo iyo bar. sheekh axmed waa dhageysatay, waxaana ku yaala weli arrimo kaloo doonaysa inaad hoos ka xariiqdid. tafadal. sheekh axmed waxaan aadan runtii u bogaadinaa sababta wixii aan sheegay ma uusan khilaafin. waxaan sheegay in culammada intooda badan ay si qabaan, laakiin aysan ahayn wax la hubo, laakiin ay tahay qiyaas iyo raadin iyo taariikhdii la goobgoobay. intaas waxaa dheer waxaa wax lala yaaban noqday. jumhuurulculamaa soo iyagu ma dhihin 12kii tusaalan qeyb badan soo ma dhihin 12kii bishii rabiicul awal nabigu dhashay. inta sida caanka ah oo culimmadu isla yaqaanin haddana waxay leeyihiin oo hadda kutubta xadiidka iyo meel walba taariikhda ku taal 12kii bishii 3aad oo rabiicul awal ah taariikhda hijriga markay ahayd sanadkii 11aad ayaa nabigu dhintay. waa 12ka isla bishaas ogow. marka maxaa yaal maalinta loo dabaal dego dhalashada nebiga, nasiib xumo waa isla maalinta nebigu u dhintay sida ay qabaan in badan oo culimmada ka mida oo meel walba ku taalla oo qof walba oo na daawana uu heli karo. waana sida caanka culimmadu isla yaqaaneen. goormay bilaabatay in nebiga dhalashadiisii xaflad loo dhigo? nebigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi xaflad isagu intuu joogay looma dhigin maalintuu dhashay, looma dhigin xaflad maalintii nebi laga dhigay, xaflad looma dhigin maalintii qur-aanka lagu soo dejiyey, xaflad looma dhigin maalintii beder oo sharta iyo khayrka iyo muslim iyo gala kala miirmeen oo maalin calaamada weyn islaamka yowm alfurqaan. wax xaflada oo loo dhiga ma jiro. wixii ka dambeeyey waa sidaas oo kale. dhacdooyinka dhacay waxay ahayn dhacdooyin farih ka batay. wax xaflad ah sanad haba yaraatee wax caddayn xataa u eg ma aysan dhicin. waqtigii asxaabta hal qof oo asxaabtii ka mid ah oo nebiga u dhigay xaflad ee loogu dabaaldegaya dhalashadii nebiga ma ay jirto. hal qof oo asxaabtii iyo taabiciintii iyo taabiciintii iyo quruuntii nebigu uu yihi khayru nnaasi qarni
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم xadiidka صaxiixa oo in badan dadku ka dharagsan yihiin dadka qurunta waxaa ugu khayr badan qarniga anigu aan joogo waxaa ku xiga kan ku sii xiga waxaa ku sii xiga xagga khayr badnaanta kan ku sii xiga hal qof oo ka mid ah oo nebiga u dhigay xaflad maalintii u dhashay iyo maalintuu dhintay iyo maalintii nebiga laga dhiga midna ma jirto yaa keenay marka in xafladdan la dhigo xafladdan waxaa keenay sida uu sheegayo maaha ninka aniga sheegayo sida uu sheegayo alxaafid alimaam ibnu kathiir fi lbidaaya walnihaaya kitaabkiisa la yidhaha almaqrizi fi lkhutat kitaabka la yidhaha suu ku sheegayo ninka la yidhaha qalqashandi subxi acsha suu ku sheegayo الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر أهره سيد أكشجع كتاب كيس اللي أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام إيه غير كنت هاد بدن علماء الإسلام بدن وحيورا عبينا ين أيضا أدونك لأقول وإحنا حفلات اللي قد على شديسي يا قرنجي أفراد لمن اللي يرى عبيديين أو أها سيد أصل كأه وحي علماء يرهدين وحي وشاكتان شيعة باطنية معنا مقالك كرة شيعي إسكنديان laakiin sida hoose muslim saxa maahan dad muslimiina maahan oo ka yimid galbeedka africa maqrib ka yimid ayaa xukumi jireen masar marka maadaama dadka ay rabeen caamada inay soo jiitaan ayay waxay u sameeyeen xaflada fara badan oo dadka ku mashquulinayaan dadkana ay ku qancinayaan dad nabigii jecel asxaabtii jecel markaas waxay soo alifeen xaflada loogu talagala Faatima gabadha nabiga radiyallahu anha waxay soo jii xasan iyo xuseen iyo cali ibn abi talib iyo xaflado loo dhigay sameeyeen mawlidka nabiga kamid aha ciid nawruz ciid liiraha kamid ahayd oo hadda nimankan Iran iyo laga yiqin ciido fara badan oo saas ay sameeyeen oo dadku ay ciid ka bax ciid gal ahaayeen niman muslim ma ahayn qarnigii afraad ee nasiib xumo hal ilbarqsiyan ku darasi warku iga istaago nasiib xumo qarnigii afraad ayadan qof muslina oo maalintaas ka hor nabiga xaflad u dhigay dhalashadiisa aysan dhicin bidcadaas markay soo korortay waxay la mid tahay nasiib xumo qarnigii afraad ayaa nasaaradana waxaa ku soo biiray bidcadaas oo kale oo ahaa ciise maalinta u dhashay in loo dhigo xaflad oo aan ku caday karno encyclopedia Britannia England midda Mareykanka meel walba laga fiiri karo qofkii raba inuu si degdeg ku ogaadana uu ka ogaa karo book yar oo uu qoray nin haystay world wide church of god nin haystay madaxda ku jiray book uu alifay oo la yiraahdo plain truth about Christmas wuxuu ku cadeynaa qarnigii afraad iyadoo diinta Kirishtaanka aysan Bible-ka ku jirin oo kaniisadda Catholic aqoon in qarnigii afraad iyadoo soo biirtay in Ciise xaflad loo dhigo wax badan aan sheegi lahay laakiin nasiib xumo waxaad moodaa waa isla sidoo kale oo la baxsiyo waxaan rabaa insha Allah taala laba daqiiqo barba ku siiyo marka waxaan rabaa Axmed intii oo kala siiyo wali waxa ogolaa saddex la siiyo may inta qaato kala siiyo halkaan ka arkaya laakiin waxaan sameeynaa insha Allah taala qadar yar xayisiinaan gelina dan Sheekh Axmed siinaya tafadhal hormuudka xawaaladaha idilahaantood adduunka hoda iyo nasiib iyo haybad iyo aaminimo lagu kala horeeyaa waxa ay ku haysaa adeeg hufan iyo weliba degdegsiinyo adiga oo ku dhisan kara kagana qaadan kara lacagtaada lacagtii weli baan helin iska daa xawaaladaha kaloo tayaa kugu soo diraya iminka ayaan EVC Plus kugu soo tuurayaa ma iminkadan waay oo ku waa tayo service tagi maysid meel fog oo taksi qaadan maysid ee telefoonka lagaa siin waa tayadii u sarraysay ha moogaan tayo service wixii faahfaahin ah ee dheeriyana waxaad kala xiriiri kartaa nambarada shaashadda ka muuqda Omar Global awr waliba xamilkii xeero waliba qaadkeed xawaalad waliba adeegeed haddaad kaash xawilayso xaddigu ahaadaba xarumaha dalkeena iyo xag kastoo u diraysaba xawaaraha ilayskay ku geysaa xaqiiqe
cidlo laguma xiiqee waa xawaalad dhaladee haddaad biilka xaaskiya xawilaysa lacag adag ha moogaan Omar Global Money Transfer حوالدها ايه هموغانين Omar Global waa sharikadii xawaalada Amana Express oo ku baahsan dunida oo dhan oo idin amaan gelisa wax kasto aad ku amaanaysataan sharikada xawaalada Amana Express amaanadiina ayay idin amaanaysaa oo idin geystaa goob kasta iyo goor kastaba sida ugu dhaqsaha badan abwaaniintii horaa tiri sharikada Amana Express waa loo aayaa oo waa lagu abshiraysaha meel kasto aad joogtaan yaan la moogaan inaad xoolihii